ugu dambeyn waxay ceebteedu soo socotaba waxa ay ka saartay barteeda TikTok muuqaalo ka badan 400 oo muuqaal. barteeda TikTok waxa rukunaa ama ku xidhnaa dad nus milyan followers ah. haddaba daawadayaal dhacdadan ayaa ugu noqotay barta YouTube-na waxa ay noqotay mid bariisata qof walba muuqaal soo galinayana dabcan waxa uu ku soo qoraya Cayuuni Qurux. haddaba daawadayaal arinta Cayuuni Qurux ayaa noqotay arin dhagaha bulshada ka farabadatay. dabcan markii ay muuqaalkan iska soo duubeen ama wiilka ka duubay muuqaalkan dabcan iyadu ma ay ogeyn sida la noo xaqiijiyay dadkuna ay badankoodu sheegayaan. haddaba daawadayaal marka koobaad haddii aad channelka ku cusub tahay waxaan ka codsanayaa videoga like saar kolley muuqaalada kaleba xumaanta faafinaya wadiga like saaraya balse anigu wax xumaana ma wado. dabcan waxaan dhiri gelinayaa inanta haddii aad ku cusub tahayna dabcan subscribe saar sidoo kale videogana dee like iska saar kolley waa daawanaysaa muuqaalkii. raggeeni anakina dhalay ee coorteena asturi lahaa haddii ay maanta intay video naga duubtaan social media keenayaan soo ma bini'aadanka qalad uu ka dhacaa sheedana meeshan joog laakiin gabar walaashaya ina ceebteeda faafis walaal wax aad iyo aad u xun ilaahay ka cabsada adduunkan waa laga tagayaa gabdhow idinkan is ilaaliya wallahi inuu sanii sharaftaada ilaalin haddaba dhacdadan ayaa ugu noqotay dadka dhagahoodana noqon weyday dabcan mid ay la qabsato. sidoo kale muuqaalka yarka ah ee laga soo duubay Cayuuni Qurux ayaa noqday muuqaal ku faafay gabi ahaanba baraha bulshada. haddaba muuqaalkan ayaa la keenay barta Facebook isla waqtigii shalay ahaa ugu dambeyntiina waxa uu noqday mid isugu soo biyashubtay YouTube. haddaba muuqaalkan ayaa noqday mid YouTuber kasta iyo Facebooker kasta uu si uga soo hadlo dadkuna ay si faalada uga dhiibtaan. muuqaalka yarka ah ayaa dabcan ahaa muuqaal yaani ogeyn iyadu balse jidhkeeda qaybo kamid ah ay taabanayso. dabcan intaasna waxa ku socotay screen recorder. waxaan u maleynayaa inay qof WhatsApp-ka kula hadlaysay video call. haddaba daawadayaal dadka qaar waxa ay leeyihiin iyada ayaa muuqaalkan iska soo duubtay. anyway isku soo wada duub kolley muuqaalkii baahna kuna baraha bulshada. haddaba daawadayaal muuqaalkan ayaan dhihi lahaa asxaabta dadka soo gashaday ee xunxunka ay qaabka daran uga hadlaya dabcan iska saara kolley waa gabadh walaasha ah inaad ceebteeda banaanka dhigdhigtay dabcan ma fiicna. haddaba daawadayaal waxaan idin dhihi lahaa dabcan asxaabta soo gashatay muuqaaladan anshaxa daran waxaan idin dhihi lahaa saaxiibyal ka saara. sidoo kale dabcan haddii idinkiina daawanaysaana aydan aragtaan dabcan dislike saara sidoo kale report gareeya dadka muuqaalka sida anshax darrada u gudbinaya dabcan xumaantana ku faafinaya baraha bulshada. sidoo kale muuqaalada ay faafinayaan ay yihiin qaar dabcan inan ah sidoo kale aan ahayn balse waxaan waa gabadh marka dabcan ka saara ayaan idin dhihi lahaa. haddaba fanaanka Dayaxda Nuurshe ayaa lagu xamanayay dabcan sidoo Cayuuni Qurux balse arrinkani wuu ka sahlan yahay ama waa ka fog yahay Dayaxda Nuurshe. haddaba daawadayaal Cayuuni Qurux ayaa gabi ahaanba faraha ka qaaday TikTok-ta iyo sidoo kale all social media kale ee ay isticmaali jirtay. muuqaalkan kadib waxa ay noqotay mid ka dhiidhida xumaanta baraha bulshada lagu faafinayo. haddaba daawadayaal Cayuuni Qurux ayaa ah qof ilaa shalay toole dabcan ilaa waqtigii muuqaalkani ku baahay baraha bulshada murugo la joogila. haddaba Dayaxda Nuurshe ay dadku ku xamanayeen balse uma maleynayo inay Dayaxda Nuurshe aad ugu fiicnaayeen. waqtiyadii hore waxa la isku xaman jiray Dayaxda Nuurshe iyo sidoo kale Cayuuni Qurux balse waqti xaadirkan waxaan u maleynayaa in aanu ahayn Cayuuni Qurux muuqaalka ninka ka duubay Dayaxda Nuurshe balse dabcan waxaan sheegi karnaa ama aanu shaacin karnaa qof ay wada sheegaysan jireen ama ay xidhiidh ka dhaxeeyeen inuu muuqaalka ka duubay. isku soo wada duub kolley Cayuuni Qurux muuqaalkan uu ka baahay balse waxaan dhihi lahaa hablaha walaalaha ee kale dabcan iska jira ama iska ilaaliya inaydin muuqaalada noocan ah aydin u dirtaan ragga ama gabi ahaanba dadka kale iyagoo adigoo aan ku kalsoonayn. dabcan san soo sheegnay kolley ninku kalsooni ma laha markaydin berisku yara dhacdaan waxa laga yaabaa in muuqaaladaadi social media ku baahiyo. haddaba daawadayaal gabi ahaan hablaha iyo ummadda Soomaaliyeedba dumarka marwooyinka iyo sidoo kale hablahaba waxaan uga digilaa in aanay ragga la wadaagin sirahooda ama fiidiyoyaasha. dabcan ha u dirin nin aanad ku kalsoonayn ama nin aan walaalka iyo aabaha dhaafsiisan video marka idin beris ku dhacdaan ama marka uu beritooda waxyaabo xumaan kuula yimaado oo aad iska waabiso dabcan waxa laga yaabaa in uu muuqaalada social media ku baahiyo. gabi ahaan waxa haysata hablaha iyo gabi ahaanba dadka dumarka waayadan dambe Soomaalida. haddaba daawadayaal Cayuuni Qurux ayaa xumaanta ka dhiidhi
dhigaysa gabi ahaanba baraha bulshada lagaga baahiyay haddii ay arki lahayd dadka soo gelinaya xumaantana dabcan waxa ay noqon lahayd mid ay jidhkiisa ay googoyso haddaba daawadayaal cidda muuqaalkan duubtay ama baahisay lama sheegi karo ama lama shaacin karo sidoo kale iyaduna afka ma ay furan ama kama ay hadal arrinkan balse waxaanu rajaynaynaa inay mar uun ka soo hadli doonto muuqaalkan dabcan ayna ku soo baahin doonto baraha bulshada haddaba daawadayaal dhammaantiin waad ku mahadsantihiin kamid ahaanshaha iyo kusoo biiritaanka channelka Enmero Films dabcan balanteenu waa subscribe-ta 100 kun oo subscriber xaasidnimada iska dhaaf xaasid ha noqon kulli muuqaalkii waa daawanaysaa muuqaalka like saar sidoo kale balanteenu waxa weeyaan 100 kun oo subscriber insha Allah taala sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan rajaynaynaa inaynu 100 kun oo subscriber gaari doono haddii Allah boqorka ay ogolaado haddaba walaal macaan subscribe saar subscribe tu lacag maaha kulli video waa daawanaysaa ee like tana raaci sii share gare oo la wadaag asxaabtiina